Biomimicry koobiyeynta makhluuqa hal abuuro laga dheegtay noolaha ma ku muuqata isu ekaansho ka dhaxaysa diyaaradda B-52 iyo gorgorka ma u jeedaa in matoorka diyaaradaha casriga ah uu eeg yahay afka galeydhka dhismahani ma u eeg yahay geeda aad taqaano muuqaalkani wuxuu isbeddel ku samayn doonaa qaabka aad u fiiriso dunida casriga ah ee kugu hareeraysan wuxuuna horseedi doonaa inaad indho cusub ku eegto quruxda alla ku duugay uumiyaha uu abuuray waxaad ogaan doontaa awoodda dheeri ah oo ay leeyihiin qaar ka mid ah xayawaanada aad maalin walba aragto iyo sida aaladaha maanta jira ay u xadeen awoodahaas noolaha eebba abuuray waxaa ku duugan jawaabaha su'aalo badan oo maskax wareer ku ridaysa insiyahanada mar walba oo ay xal u waayaan mushkiladda nolosha waxay xal ka raadsadaan dhirta iyo xayawaanka kala duwan sheekadani ma aha mid cusub ee waxay la kowsatay bilowgii bini'aadamka markii uu shimbirka tuguhu baray qaabiil sida loo aasay meydka haddii aad u fiirsato jirka diyaaradda waxaad arkaysaa in laga dheegtay qaabka shimbiraha laba baal iyo jidh dhuuban oo dhexda ugu jira waa qaabka ugu wanaagsan ee diyaaradaha ka badbaadin kara cadaadiska xooggan ee hawada nashqadda loo sameeyey baalasha diyaaradaha waxaa mastarad iyo xisaab lagu waafajiyey baalasha shimbiraha waxaad xaq u leedahay inaad su'aal iga weydiiso diyaaradaha helikobtarka oo aan lahayn baalasha fidsan ee shimbiraha lagu yaqaano waa su'aal saxan oo ka soo maaxatay maskax shaqaynaysa diyaaradda helikobtarku waxay samaysaa hovering ama duulimaad iyada oo meesheeda taagan oo aan samayn wax socda ah nashqadan waxaa laga soo xaday shimbirta lagu magacaabo hummingbird oo awood u leh inay duusho iyada oo meesheeda taagan peregrine falcon oo ah nooc ka mid a galeydhka waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay kan ugu dheereeya noloyaasha la yaqaan waxa uu awoodaa inuu ku duulo xawaaro ka badan 390 kilomitir saacaddii khataraha ka hor yimaada marka uu xawaaro sare ku duulayo waxaa ka mid a cadaadiska xooggan ee dabaylaha shimbirkani waxa uu adkaysi u leeyahay inuu iska caabiyo cadaadis kasta oo kaga imaan kara hawada sababtuna waa daloolo laba ah oo ku yaalla afkiisa kuwaas oo lagu magacaabo befalis ilaahay amarkiisa iyaga ayaa u suurtageliya inuu iska caabiyo cadaadiska hawada uu jiirayo jir walba oo xawaaro sare ku duula wuxuu cadaadis xooggan kala kulmayaa hawada daloolada ku yaalla afka galeydhka waxaa ka faa'iidaystay injineerada farsameeya diyaaradaha waxayna sameeyeen matooro leh daloolo u eg kan galeydhka kuwaas oo dhexda ku leh bir yar oo leeg lafta dhexda kaga jirta daloolka galeydhka farsamadani waxay ka caawisay injineerada inay hawadu si fudud u gasho matoorka ayna sare u qaadda wareegga uu samaynayo shimbiruhu inagama aysan caawin horumarinta diyaaradaha oo keliya ah ee waxaa jira dhinacyo kale oo ay faa'iido uga kordhiyeen tiknoolajiga aan isticmaalno tusaale ahaan digaagga ama doorada hadba magacaad u taqaano haddii aad soo qabato oo aad wareejiso jirkeeda ama aad dhinacyo kala duwan u dhaqaajiso waxaad dareemaysaa in madaxa digaaga uusan marnaba ka dhaqaaqin meeshiisa arrintan waxaa ka faa'iidaystay shirkadda LG ee soo saartay kamerooyinka sensorka kamarada ayay beddeleen habkii loo samayn jiray iyaga oo fikradda ka soo dheegtay digaagga farsamadani waxay sawir-qaadayaasha u fududaysay inay qaadaan sawirro toosan iyaga oo soconaya maanta tiknoolajigan waxaa ku jira dhammaan kamerooyin kala duwan waxaana loo yaqaanaa optical image stabilization farsamada madaxa digaagga waxaa kale oo ka faa'iidaystay shirkadda Mercedes-Benz oo sanadkii 2012 soo saartay farsamo cusub oo lagu yareynayo ruuxanka gaariga marka uu marayo meel aan sinayn oo dhagax leh nidaamkan waxaa lagu magacaabaa magic body control waxaana laga soo dheegtay madaxa digaagga ee aan dhaqaaqin dhinac kasta oo jirka loo dhaqaajiyo waxaa xusid mudan in arrintani aysan ku koobnayn digaagga oo keliya ee ay la wadaagaan xayawaano kale oo ay ka mid yihiin bisadaha tiknoolajigani waxa uu u sahlaya in rakaabka gaarigu aysan dareemin ruux raaxadooda wax u dhima marka gaarigu marayo meel aanan sinayn xayawaanka xiga ee aynu tusaalaha ka dhigan doonno waa qoolida fariimaha qaada ee hummingbird oo aan filayo inaad aflaanta ka fiirsateen shimbirtani waxay awood u leedahay inay garato meesha loo diray ayna ku soo noqoto meeshii laga diray cajiib waxaad moodaa inay madax ku wadato maab ama khariirad ay raacdo sirta cajiibka ah ee ku dugan shimbirkan waxaa looga faa'iidaystay horumarinta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano UAV kani waa taajka tareenada Japan waana tareenka ugu dheereeya ee farsameeyeen injineerada dalkaasi xawaarihiisu waxa uu gaarayaa 320 kilomitir saacaddii waxaana lagu magacaabaa bullet train oo macnaheedu yahay tareenkii xabadda waxaana looga jeedaa inuu la xawaaro yahay xabadda la rido afka hore ee tareenkan waxaa loo nashqaday qaab u eg shimbirka lagu magacaabo boqorka kalluumaysiga ee Kingfisher shimbirkani waxa uu awood u leeyahay inuu si degdeg ah afka u geliyo biyaha isla markaasna uu soo saarto kalluunka uu rabo isagoo aan caabin ama cadaadis kala kulmayn biyaha uu xoogga u muquuray
dhammaan tusaalayaashaas aan soo bixinnay waxaan ka soo qaadanay caalamka shimbiraha. inta aanan u gudbin tusaalayaal kale aan isla fahanno fiilada xiriirisa tusaalayaashan oo ah cilmi loo yaqaano biomimicry. waa eray asal ahaan ka soo jeeda luuqadda Giriigga, waana eray ka kooban 2 qaybood: bios oo macnaheedu yahay noolaha, iyo mimesis oo macnaheedu yahay koobiyeynta ama ku dayasho. waa cilmi ku cusub adduunka oo dhowaana la bilaabay in si madax bannaan loo darso waxna looga qoro. ujeedka cilmigan ayaa in laga faa'iideysto casharada laga baran karo si loo horumariyo tiknoolajiyadda iyo aaladaha aadmigu adeegsado. marka laga hadlayo cilmigan cusub ee biomimicry, noolayaasha kala duwan ee Alla abuuray ayaa marjic u ah horumar kasta uu gaadho. waxa xaqiiq ah in laga soo dhigtay uumiyaha uu Ilaahay abuuray, sida soolarka tamarta laga dhaliyo, falaaraha cadceedda oo laga soo dhigtay caleemaha dhirta. haddii aad u fiirsato maqaarka libaax-badeedka, waxaad arkaysaa inuu ka samaysan yahay lakabyo siman oo kala sarreeya. maqaarkani waxa uu ka yareeyaa cadaadiska biyaha marka uu ku soconayo hoostooda, waxaana u suurta gashaa inuu xawaaro sare uu kala goosho geesaha badweynta. shirkadda lagu magacaabo Fast Skin ayaa samaysay dhar u eg maqaarka libaax-badeedka. qofka xirta dharkan waxa uu ku socon karaa xawaaro ka badan kan bini'aadanka caadiga ah xilliga uu dabaalanayo. waxaa jirta shirkad kale oo lagu magacaabo Shark Technology, taas oo ay saynis yahanada ka shaqeeya ay ogaadeen in maqaarka libaax-badeedka aysan ku dhigi karin bakteeriyadu. sidaas darteed waxay bilaabeen farsamaynta caag u eg maqaarka libaax-badeedka, kaas oo uusan jeermisku qabsan karin. waxaana la qorsheynayaa in lagu xiro isbitaallada iyo goobaha la isugu yimaado si loo xakameeyo cudurrada faafa. kulaylka cimiladu waa mid ka mid ah mashaakilka ugu weyn ee dunida casriga ah. 20% lacagta ku baxda korontada waxaa loo adeegsadaa qaboojinta dhismayaasha. kani waa dhismaha wasaaradda deegaanka iyo duurjoogta ee dalka Qatar, waxa uuna ku yaalaa caasimada dalkaas ee Doha. nashqadda dhismahan waxaa laga soo qaatay nooc ka mid ah noocyada geedka tiinka. waa geed ka baxa dhulka saxaaraha ee cimilada kulul, wuxuuna ka kooban yahay jirid iyo laamo isu eg oo leh diilimo dhaadheer iyo qodxan tiro badan. diilimaha ku yaala geedkan waxay harsiyaan oo qoraxda ka ilaaliyaan qaybaha godan ee geedka. sida laga arki karo sawirada muujinaya heerkulka geedka, qaybaha godan ee helay harka kulaylkoodu waa mid hooseeya. waxaa la odhan karaa geedkani waxa uu harsiyaa naftiisa, waxa uuna maamulaa xaddiga falaaraha ku dhacaya jidhkiisa. dhismahani waxa uu ka duwan yahay dhismayaasha kale ee u samaysan habka afargeeska ah. injineerada dhismaha ayaana fikraddan ka hirgeliyey meelo kala duwan oo dunida ka mid ah. waxaa jira 3 nooc oo loo xado nashqadaha dhirta iyo xayawaanka. nooca koowaad, koobiyeynta qaabka. noocan waxaa tusaale loogu soo qaadan karaa dharka aan biyuhu qoyin. dharkan waxaa laga sameeyey maadooyin neceb biyaha oo lagu magacaabo hydrophobic materials. farsamadooda waxaa laga soo dhigtay geed lagu magacaabo luud oo caleemihiisu biyaha iska rogaan. tusaale kale oo noocan loo soo qaadan karo waa irbadaha dawada ee dhaqaatiirtu ay ku midaan bukaanka. nashqadda caaradda irbadaha waxaa laga soo qaatay dibka dabqalooca iyo micida abeesada. nashqadani waxay u ogolaanaysaa irbadda iyo xayawaanada la midka ah in ay jidhka aadanaha geliyaan dareeraha ugu badan ee suurtagalka ah. nooca labaad ee loo xado nashqadaha dhirta iyo xayawaanka waa koobiyeynta shaqada. noocan tusaalihiisa waxaa loo soo qaadan karaa jirjiroolaha oo ah xayawaan uu eebbe siiyey awood uu jidhkiisa ku beddelo si uu uga badbaado xayawaanada ka xoogga badan ee uga adhsan kara. jirjirooluhu mar walba waxa uu qaataa midabka deegaanka uu joogo. jirjiroolaha waxaa laga bartay habka ugu wanaagsan ee la isu qarin karo. farsamadan waxaa loo yaqaanaa camouflage, waxaana ku dhaqma ciidamada toogashada wax ku dila ee sniperska. mulucu waa nooc ka mid ah xamaaratada oo dhalinyarada Soomaalidu ay baadiyaha si baan uga xasuuqaan. xayawaankan yar waxa uu leeyahay lugo yaryar oo meesha ay qabsadaan aan laga fujin karin. waxaana soo baxday shirkad lagu magacaabo Gegskin oo samaysay koolle awood badan, taas oo fikradeeda ay ka qaadatay qaabka ay lugaha xayawaankani ugu dhagaan geedaha. nooca saddexaad ee loo xado nashqadaha noolaha waa koobiyeynta muuqaalka. waa in la sameeyo boombalo u eg mid ka mid ah xayawaanada, mararka qaarna u dhaqmaya sida xayawaankaas ama xataa samayn kara codkiisa iyo wixii la mid ah. noocani ma awood badna, waxaana looga faa'iidaystaa in carruurta lagu madadaaliyo. dhulka aan joogno eebba wuxuu ku uumay malaayiin nooc oo noole ah. aadanuhu ma aha xayawaankii ugu horreeyey ee gurya dhista, biyaha dushooda ku socda ama hawada duula. xayawaano kala duwan ayaa horteen sameeyey, weliba si ka wanaagsan sida aan u samayno. arrintani waxay nagu qasbasaa inaan u fiirsanno koonka, aanna isku dayno inaan fahanno mucjisooyinka iyo siraha uu Ilaahay ku duugay. waxaa la odhan karaa
ugu dambayn dadku waxay arday u noqdeen oo cilmi ka raadiyeen dhirta iyo xayawaanka ku xeeran. cilmiga cusub ee biomimicry waxaynu ka faa'iidnay waxyaabo badan oo nolosheenna horumar gaarsiiyey. haddii aad Google-ka weydiiso biomimicry waxa kuu soo bixi doona kumanaan tusaale oo aynan muuqaalkan ku sheegin. waxaadna helaysaa casharo iyo buugaag laga diyaariyey mawduucan.